dad badan su'aalo ayna weydiinayaan arrimaha ku saabsan tahajjudka maxaa laga sameynaa tahajjudka dawladda la fadhiisanay marka wala hadal ay noo socdo ilaa isniinta maalinta isniinta laga gaarayo ka hor halka habeen oo ugu horeeya tahajjud lama tukuni kara oo yaani masaajidda lagu tukuni kara guryaha la iskaga tukado marka insha Allah isniinta maalinta wax ka bilowdo khabar cusub naga helaysiin insha Allah wa jazakumullahu khairan waxaa culimada go'aan ku gaartay maalintii khamiista eeday arrimaha soo socda kow suxuurta waxaa yaqiin noqday in 10 saac iyo 50 daqiiqo kadib wax la cuni karin aadaankana uu markaas kadib la aadami karo taas waa qodobka labaad in la joojiyo mikrofonaadka fara badan isku furay oo taraawiixa oo istashwiishinahay arrintaas culimadu waxay u garatay inay xaaran tahay oo dulum tahay jazakumullahu khayran midda suxuurta oo sheekha aad uu noogu dhawaajinayo ilaahay idin barakeeyo waxa waa cibaado waaye cibaadadina mar haddii ay wax halaabayeen inaan culimadu inay sheegto ay cadeyso ay ka digto waa arrin waajib waaye marka suxuurta waxay ku eg tahay 10 saac iyo 50 daqiiqo markii la joogo waa la joojinayaa suxuur lama sii wadaayo haddii la sii wado macnaheedu waxay ka dhigan tahay maalinimo wax cuntay waqtiga suxuurta loogu talagalay waa la dhaafay marka maalintaad soonkeeda waa ka halaabaya marka saad soonka nooga halaabin oo ajirka u helna waxa waaye arrintaas waa inaan ku dadaalno tan kale 10 dambe oo Ramadaan ayaa la bilaabayaa oo habeenka isniinta ka bilaabanaya marka dadaal badan iyo cibaado badan iyo khayr badan aan soo dardaarmayna tahajjud guryaha lagu tahajjudo haddii nololeeda masaajidada in ay suurtagal weyso inay wax un ka suurtagalaan ilaahay baan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala rajaan qabnaa tan kale madaxweynaheenaba maanta wuxuu furay ma garanaysaa sidaan maqalnay wadooyinkii ayuu isu furay iyo magaalooyinkii marka tanna inay wax weyn culays weyn aad sii jiri doono waan rajaynaynaa laakiin amar ma qabna hadda aan ku furnoon dhahno oon bixinno ma haysano marka saasna la ogaado marka tahajjudka iyo i'tikaafka iyo khayrka quraan akhriska iyo lagu dadaala 10 dambe laylatul qadr oo khayr min 1000 shahrna ku jirto ilaahay ana waafajiyo soomanka soo socdana ku sii gaara oo kasii cibaadeysta ilaahay nagu dar islaamnimo iyo iimaan Allah nagu gaarsiiyo jazakumullahu khayran